Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Hantida ugu weyn ee dalka Soomaaliya Ilaahay ku manaystay waa dhalinyaro aad u fara badan. Khubarada ku takhasusa dhalinyaradu waxay leeyihiin dhalinyaradu waa sida shidaalka oo kale. Shidaalka dhib waa leeyahay, dheefna waa leeyahay. Shidaalka haddii dab ama taraq la taabsiiyo wuu holcaa, wuu khasaaro badiyaa. Laakiin shidaalka haddii loo adeegsado gaari ama makiinad wuu ku dhaqaajinayaa, wax buu soo saarayaa. Sidoo kale haddii aan Soomaalinahay waxaan la gudboon in aan u adeegsano tamarta iyo xamaasadda dhallinyaradeena wax soo saarka waddanka iyo horumarka waddanka hadduu Ilaahay yiraahdo. Runtii maanta dhallinyaradu caqabado badan ayaa soo food saaray oo ay ka mid yihiin fursad la'aan iyo shaqo la'aan. Shaqooyin waddankii waa jiraa, laakiin badankoodii waxay u badan yihiin shaqooyin farsamo gacmeed ah oo ay xirfad u lahayn, iyo dhalinyarada badankoodaba waxaa moodaa inuu cuntamayn shaqooyinkaas. Shaqooyinkii dowladda ay abuurtay waa mid kooban, kuma filna. Shaqooyinka private-ka ay abuurtana sidoo kale baahidaas ma dabooleyso. Badankoodina waxaa moodaa mid garab la isugu geeyo ama graduation ku dhisan. Waxaa kaloo jira dhalinyaro badan oo jaamacadaha ka qalin jibiyey oo bartay maadooyinka maareynta iyo dhaqaalaha. Taasna waxaa u sabab ahaa markii ay dagaalada dhaceen ayaa waxaa waddanka kusoo qulqulay hay-ado gargaar. Hay-adahaas oo u baahday dad u maareeya barnaamijyadoodii oo gargaarka ah. Sidaas darteed dhalinyaradii markay arkeen dad saaxiibadoodii ama walaalahoodii ama jiiraankoodii oo shaqo ka helay hay-adahaas, badankoodii waxay ku daateen inay bartaan maadooyinka oo la xiriira arrimahaas, taasoo sababtay dhalinyaro badan oo jaamacada ka qalin jibiyey oo sameeyey maadooyinka maareynta iyo dhaqaalihii oo shaqo la'aan ah iyo shaqooyin kooban oo waddanka ka jiro. Marka waxaa la yiraahdaa albaab walba garaac. Haddii albaabada ay ka furmi waayaan, adigu albaab sameyso, albaab adiga abuuro. Runtii tahriib tala ma noqdo. Tacsi badan oo dhalinyaradeena ayaa lagu soo sheegay oo baddi ku dhammaatay. Tan kaliya furan maanta waa tijaaradii ama ganacsiga. Lacagaha fara badan ee tahriibka ku baxaya, haddii ganacsi lagu sameeyo ama dhalinyarada ay ganacsi ku sameeyaan, waxaa hubaal ah dhalinyaradaas inay isku filnaansho gaarayaan, ayba u baahnaan doonin inay dal shisheeye aadaan. Laakiin dhibaatada hadda jirtaa waxay tahay dhalinyaradii oo ka baqaya ama kalsooni aan ku haysan inay ganacsi galaan. Marka waxay u baahan yihiin dhalinyarada dad dhiirigeliyo oo khudwad u noqdo. Taasna waxaa loo baahan yahay dadaal wadareed oo loo wada dhan yahay oo ay ka qayb qaadanayaan ganacsatada waaweyn, diyaasbarada, dowladda iyo hay-adaha waxbarashada. Waxaa halqabsi laga dhigtaa shimbirta markay baranayso duulitaanka, kor ay u kacaysaa, waa soo dhacaysaa, waa kacaysaa, waa soo dhacaysaa. Laakiin waxaa usoo gurmada u yimaada shimbiraha waaweyn, shimbirtaasoo lagu dhiirigeliyay inay buubto, markaasay duushaa shimbirta. Sidoo kalena dhalinyaradeena markay ganacsiga bilaabaan waa kufayaan, waa kacayaan, waa kufayaan, waa kacayaan. Waxay u baahan yihiin dad garab gala oo yacni wax u qabta. Tusaale ahaan, ganacsatada waaweyn waxay u samayn karaan seminaaro ay ku dhiirigelinayaan dhalinyarada inay ganacsiga geesinimo ku galaan. Sidoo kale ganacsatada waaweyn dhalinyarada fikradaha fiican hayo waxay siin karaan deyn aan dulsaar lahayn, taasoo u suuro gelinaysa inay soo kabsadaan deyntiina ay gudaan. Sidoo kale mujtamaca diyaasbarada ee dadkoodii wax u soo dira, lacagaha ay u soo dirayaan haddii ayadoo kuusan ay u soo diraan oo ay dhalinyarada firfircoon reer ka mid ah ay ganacsi ku sameeyaan, waxay u suuro gelinaysaa inay reerkii isku filnaansho gaaraan oo ay u baahanba in mar dambe xawaalad loo soo diro. Macnaha taasna adiga danaa kugu jirto, maxaa yeelay lacagihii xawaalada la diri jirtay aad ayay u kacday. Markii aad fiiriso $100 meeshii 65 pound lagu diri jiray waxaa lagu diraa maanta 82. macnaa taasna maslaxa kugu jirto. Sidoo kale dal aan dadkaaga ahayn dareen ku joog waaye. Xisbiyada oo garabka midig
ayaa ku guuleysanaya siyaasadii. Marka haddii wadankii loo noqdo ganacsigaas adiga laftirkaaga bilow ayuu ku yahay. marka waxaan kugu dhiirigelinayaa dadka diasporada jooga inay dadkoodii maalgeliyaan si ganacsi ay u abuurtaan. sidoo kale dowladda runtii waxay ka qayb qaadan kartaa inay abuurto ololahaasoo oo u dhigma ololihii horumarinta reer miyiga oo kale af Soomaaliga lagu baranayay. ololahan waxaa ka qayb qaadanaya mujtamaca diasporada ama dhalinyarada diasporada iyo dhalinyarada dalka joogay ayaa waxaa sameynaya aqoon isweydaarsi ganacsi ah. dhalinyarada diasporada ganacsiga fikradaha ganacsiga ay hayaan waa fikrad reer galbeed ama indho reer galbeed lagu arkay. fikradahaas waxay u baahan yihiin in la Soomaaliyeeyo oo taasna waxaa ka kabaya dhalinyaradii dalka joogay. sida tusaale ahaan waxaan soo erganay alfabeetka laatiiniga ah laakiin waxaan u rognay xuruuf af Soomaali ah, yacni alfabeetka laatiiniga ayaan Soomaaliyeynay. sidoo kalena fikradaha ka yimid dibadda ee ganacsiga waxay u baahan yihiin in la Soomaaliyeeyo. sidaas darteed ayaa waxaa arkaysaa dhalinyaro diaspora badan oo khalad ganacsi galay oo ku khasaaray ganacsigoodii. sababta waxaa keentay fikradaha waa in la Soomaaliyeeyaa. marka waa in iskaashi ay ka dhacaan dhalinyarada dalka joogay iyo dhalinyarada diasporada. taasna waxay suuragelinaysaa dhalinyaradii diasporada iyo kuwii dalka joogay xumaatadii iyo malaxumadii ka dhaxaysay iyo tartankii inay isku bedesho mid kalgacayl ah oo iskaashi dhex mari doona hadduu Ilaahay yiraahdo. waxaan leenahay Soomaalidu waxay tiraahdaa dagaal ama cayaar waa gelin dambe. markii amaanta fiiriso dhaqaalaha adduunka wuxuu isugu soo biishubanayaa dalka Afrika macnaa qaaradda Afrika. anagana waa ku gacan sareyn karnaa hadduu Ilaahay yiraahdo. laakiin hadda yacni aad ayaan u liidanaa markii aad fiiriso ururka IGAD wadamada dariska aan nahay. dalka Kenya ka soo qaad alaabta aan u dhoofino iyo alaabta aan ka soo dhoofsano waxaa badan alaabta aan ka soo dhoofsano. taasna waxay u dhigantaa gurigaaga kubadda lagaaga badiyay. taasna waa ceeb. laakiin guuldaradaas guul waa u rogi karnaa hadduu Ilaahay yiraahdo. haddii dhalinyarada Soomaaliyeed ay isqabsadaan, Soomaalidu waxay tiraahdaa shinnida markay isqabato ayaa malabkeeda la helaa. sidoo kalena dhalinyarada Soomaaliyeed hadday isgacan qabsadaan malabkoodii waa la helayaa. waxaan gabagabadii idin leenahay dhalinyarada dhuuxi dhaqaalihii waa idinka. dheesha dhaafa ka dhiidhiya dhaqaalaha dhulkiina. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysateen. waa barnaamijkii horumari ummadaada oo idin soo gudbiyay Baasi Xaaji Busuri. waxaa kaloo isku soo dubiraday walaalkeen Axmed Amiin Xasan. barnaamijkan waa barnaamij taxane ah walaalayaal. fadlan isdiiwaangeliya, subscriber ka noqda, follow ku sameeya Facebooka. daawasho wacan. mahadsanidin. jazaakumullahu khayran.